masaajidkan waxaa doonay marka ugu horeysa oo xil weyn iska saaray hooyo Saciido ciise aadan oo xaaskiisa ahayd aabbana wuxuu ahaa nin istaahila caruurtii ama dhallinyaradii oo adduunka intuu jiray oo joogay oo waxtarayna ay u dooneen meel kastaba ha joogaane in masaajid aabba loogu tabarco oo loo dhiso siduu ilaahay guri uga dhiso jannada isaga waxaa xasuus mudan aan u ducaynaynaa oo ka mida dadkii mataqaana wax badan ka qabtay masaajidkan inuu dhismo waxaa weeye Saare Xuseen oo ka mid ah caruurtii oo maanta waa qof weyn oo reer leh ku soo koray gurigii Abe Faarax Jaam runtii maanta annagu farxad gaar ah ayay noo tahay waayo bayd ilaahay oo aad gacanta ku haysay oo sidii aad ka rajaynaysay aad ka heshay waa wax aad iyo aad loogu farxo ma haddaasna ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala iyo waardintii dhisay masaajidkan walaalayaal masaajidkan wuxuu socdaa muddo gaaraysa ilaa 2 sano marxalado badan ayuu soo maray khayr badan allah siiyo doctor Dhagacade iyo maama Saciida Ciise markay arkeen baahida xaafadda oo ay lugahooda ku yimaadeen arkeen xaafaddu inaysan masaajid lahayn arkeen inaysan lahayn madaaris qur'aan ayay halkaan nooga asaaseen marka meeshaan waxa laga bineeyay oo maanta la xargi jarayo ma aha masaajidka kali ah waxa inoo furan madarasadii oo ay wax ku baranayaan arday ka badan ilaa 70 asaga salaadiisa iyo jamaacadkiisa waa maanta laakiin madrasadu waa shaqeynaysa oo khayrkiisii horay ayuu u bilowday ma haddaasna ilaahay baa iskale subxaanahu wa tacaala iyo waardinta ka dambeeyey waxaan jecelnahay haddii ilaahay idmo nafta noogu masaabaxo in masaajidku uu noqdo mimbar ay nooleeyaan xaafaddu sideeda masjid walba lambarko waxaa nooleey waa dadka xaafadda waxaa la doonayaa waardinta xaafadda ku nool oo aabbayaasha ah oo dhalinyarada ah inay soo camiraan masaajidka oo ku soo tukadaan in darsi waxaan jecelnahay xilaqaada in laga bilaabo oo kutubta ah xafladan lagu furayo masjidkan qiimaha badan leh oo ku soo biiray magaalada Buurtile oo ay ku soo biiriyaan dadka muxsiniinta looguna talagalay loona waqfay mu'minkii hadda laga sheekeeyay in ilaahay uga dhigo irad irmaan oo shaqeeya oo baraka badan ilaahay ka keeno oo sida loogu hawshooday irmaankeeda ilaahay u siiyo intii ka shaqeysana dhamaantood ilaahay cafis iyo khayr ilaahay ku siiyo ugu bedelo xafladan runtii waa xaflad qiimo badan oo sida ku asteesan sida mas'uuliyiinta gacanta ka haysay inoo sheegeen muuminka laga sheekeeyay Faarax oo dadkii caa'ilada ahaa oo xoogaalka ay ka sheekeeyeen runtii sida ay uga sheekeeyeen aad iyo aad bay noo taabatay waxaanu leenahay ilaahay jannadiisa ha ka waraabiyo inuu jannadiisa geeyo dhammaan dadkii hawshan quruxda badan soo qabtay oo ugu horeeyo Dr. Cabdulqaadir iyo intii ku gacan siisay guda iyo dibadba waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka ugu daro shakhsigii ama xaajigii ay ula niyoodeenna ilaahay inuu thawaabtiisa gaarsiiyo baan ilaahay uga baryaynaa waxaan kale u ducaynaynaa gabdhihii oo xusay halkan Dr. Axmed ku xusay oo uu yiri waxa yiraahdaan noo soo duceeyo oo isugu jiray ajnabiga iyo Soomaalidaba gabdhahaasna waxaan leenahay ilaahay wixii ay tabiyaan oo dhibaato oo haysta ka dulqaado wixii ay doonayaan oo khayran Allah siiyaan leenahay masaajidkan iyo maraaxiishu soo maray iyo sidii wax looga qabtay iyo cidii wax ka qabatay ka soo sheekeeyay khaasatan Dr. Dhagacade oo ahaa ninkii ilaahay u makaniyay inuu shaqadan halkan soo gaarsiiyo aad buu doctorku maadsan yahay khayr badan buu ka shaqeeyay bayd ilaahay buu dhisay bayd ilaahay oo la dhisay iyo fawaa'idka ay leeyihiinna culimadii baa sheegtay ilaahay waxaan u rajaynaynaa bayd inuu jannada uga dhiso
waana u dhisi doonaa biidni illaahi alkariim. wanaagga badanoo u sameeyey ummadda soomaaliyeedna halkaana ayadana carabka looga dhuftay oo waxa weeye shaqo caam uu hayaa, wuu shaqeeyaa. waxaan ilaahay uga rajaynaynaa cimri dheer iyo cibaado suuban. dadka kale oo ehelkaayo badan oo maamadu ku jidho oo asagu ka mid yahay oo gartay inay waqaf u sameeyaan sheekh faarax oo halkan asagana laga sheegay maxaamidiisa aad bay u mahadsan yihiin. cabdir faaraxna waan aqaanay, ilaahay jannada ha ka waraabiyo. wuxuu ahaa sidii runtii loo sheegay addoon ay ka muuqato inuu ehlo janno yahay. waxaan leenahay cabdulqaadir ilaahay khayr ha ku siiyo, wax badan baad soo qabatay, dad badan baad u soo maaragtay, asxaan badan baad samaysay, muslimiin badan baad badbaadisay, waqaf badan baad waxaad u samaysay diinta, masaajido iyo maxaa la yidhahdaa malcaadama. dad badan oo masaakiino oo aan waxba haysan aad u gargaartid. waxaan ku leeyahay ilaahay guriga jannaha kaaga dhiso, jannada guriga kaaga dhiso. waxaan kaliya u gudbayaa ducadii lana ka codsaday oo ugu horeeyo doctoorkeena doctor Dhagacade, Allaha barakeeyo cimrigiisa inta ka hadhay, cimrigiisana insha Allah cibaado suuban iyo caafimaad ha ku sugan leenahay. intaan kaliya ma ahan madaaris hore iyo masaajid hore oo gobollo kala duwan ku yaal oo qabtay, iyo nafta bini aadanka oo ugu qaalaysan waxa ilaahay abuuray oo inta u badbaadinayo baan ayadana waxa weeyaan la soo koobi karin. maanta waxaanu markhaati ka nahay Aabba Faarax inuu miro wanaagsan adduunka uga tegay oo sadaqa jaariya uu uga tagooday. waxaan leenahay ilaahow markhaati baan ka nahay, ilaahow jannada firdaws ku gaarsii darajooyinka u sareeya. oo siciido iyo gabdhaha kale ee soo codsan in loo soo duceeyana waxaan leenahay ilaahay wixii khayr oo aad rajaynaysaana ee aad doonaysaana ha idin siiyo, wixii shara oo aad ka cabsanaysaana ha idinkaga mooso. maanta waxaan markhaati inoo ah mirihii Aabba Faarax uu tabcaday baynu taaganahay. cabdulqaadir waxaan leenahay jazaaka allahu khayra aljazaa. wixii hore aad gaalkacyo uga qabatay iyo buurtilo gudaheeda oo madaarista qaabkooda uu gacanta ku hayo iyo masaajidkan oo hor leh, waxaan rajaynaynaa in ilaahay maalinta aad geeriyootid aad ugu tegi doontid guriga ilaahay uu kaaga dhisay.